tan iyo bilowgii bisha Rabiicul Awwal oo haatan sii maraysa gabangabo waxaa si isdaba jooga guud ahaan caalamka kaga soconayay munaasabadaha loogu dabaaldegayo dhalashada xabiibkeena Muxamed nabadgelyo naxariiso korkiisa ha ahaatee maantana waxaa munaasabad heerkeedu sareeyo oo lagu xusayay dhalashada nabigeena Muxamed nabadgelyo naxariiso korkiisa ha ahaatee lagu qabtay hoolka jaamacadda Daaha oo ku taala degmada Hodon gaar ahaan xaafadda Tarbunka ee magaalada Muqdisho kulankani oo ay soo qaban qaabiyeen ardayda kulliyadda shareecada iyo qaanuunka iyo camiidka kulliyadda shareecada Master Maxamed Xasan Maxamed Balac ayaa waxa ka soo qayb galeen mashaayikh macallimiin ardayda wax ka barata jaamacadda iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxa lagu daafuray kalaamka Alle iyo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما السلام عليك أحمد يا حبيبي طه يا حبيبي صلى الله عليك عليك أحمد يا حبيبي طه يا حبيبي صلى الله عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي طه يا طبيبي صلى الله عليك عليك أحمد يا حبيبي طه يا طبيبي صلى الله عليك يا زين الوجود طه يا درجودي قربك مقصودي صلى الله عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي طه يا طبيبي صلى الله daafurka kadib camiidka kulliyadda shareecada iyo qaanuunka Master Maxamed Xasan Maxamed Balac ayaa bogaadiyay ardayda sida weyn uga shaqeeyay isku dabaridka xafladani soona dhaweeyay mashaayikhda iyo marti sharafta kale ee ka soo qayb galeen xafladda anigoo ku hadlayo magaca kulliyadda shareecada iyo qaanuunka ee jaamacadda Daaha waxaan rabaa inaan bogaadiyo dhammaan juhuudii iyo dadaaladii iyo sidoo kale hawlihii aan kala go'an lahayn xafladani aad ku qiimaha badan lagu soo qaban qaabiyay sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo labada kulliyadood barnaamijkan si gooni isaga xil saaray ee kulliyadda shareecada iyo qaanuunka si gaar ah ardadooda ayaan u mahad celinaynaa si gaar ah waxaan rabaa simisarada iyo kaabgalaasyada iyo ru'asaa al-fusuul oo dadaalada iyo hawlaha si aan caadi ahayn u wada inaan dhaho waa mahadsantihiin si gaar waxaan rabaa inaan semesterka shanaad kulliyadda shareecada iyo qaanuunka oo hawshan shaqada ugu badan marka laga hadlayo dadaalada iyo sidoo kale hawlaha maanta aan heerkan ku soo gaarnay dadka ugu badan geliya sidoo kale waxaan rabaa inaan labadii hawlwadeen hoggaanka noo hayay hawshan noo agaasimayay Ustaad Nuux Xasan Cali iyo Ustaad Cabdiraxmaan Axmed Cali oo runtii hawlihii ugu badnaa isku xirka iyo shaqada ugu badan qabteen aan dhaano waa mahadsantihiin inta kadib xafladan waa dhalashada nabigeena calayhi salaatu wasalaam in loo dabaaldego waa taariikh sanadla ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam in sidaan oo kale sanad waliba loo xuso nabiga calayhi salaatu wasalaam marnaba qalbigeena kama marna markasta ayaan salaadaheena iyo ducadeena aan ku sheegnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ummadan kii ugu khayrka badnaa ummadaha ugu khayrka badneed ayaana nasiib u yeelatay nabiga calayhi salaatu wasalaam ixtifaalkiisa iyo ka sheekayntiisa jaamacadda Daaha waxay kow ka tahay jaamacadaha u dabaaldego sanad kasta
dhammaan sanad kasta sidaan oo kale ayaa la isugu yimaadaa bisha Rabiicul Awwal maamulkeeda iyo dhammaan qaybaha kala duwanna waxay ku farxayaan dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam maadaama jaamacadda Taaha magaceedaba uu yahay Taaha nabiga calayhi salaatu wasalaamna sida aqwaasha culimada qayb kamid ay dhahan magaciisa waxa kamid ah Taaha way u dabaaldegaysaa jaamacatu Taaha tahtafilu bimawlid Taaha al-Habib sallallahu alayhi wa sallam inta kadib kalimadeedu waa soo dhaweyn iyo furitaan waxaan rabaa inaan dhammaan qaybaha kala duwan ee majliskan ay ugu horeeyaan culimada kala duwan dhammaan sidoo kale martida qiimaha leh maamulka jaamacadda qaybaha nagala joogto ardada iyo dhammaan marti sharafka kale inaan dhaho soo dhawaada ku soo dhawaada hoolka jaamacadda Taaha oo maanta ay ku qabsoomayso xafladda qiimaha badan ee dhalashada nabigeena Muhammad alayhi salaatu wasalaam lagu dabaaldegayo dhanka kale mashaayikhdii ka soo qayb galeen xafladda ayaa goobta muxaadarooyin qiimo leh ka jeediyeen iyagoona si weyn uga sheekeeyeen siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhashay bisha la yiraahdo Rabiicul Awwal oo gabagabada ah markay ahayd sida raajixa 12ka Rabiicul Awwal maalin Ithnayna ayaa nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam خلافات باسكتشر لكن واكي أرنها صاحب البرزنجي والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول واكي أرنها مركا النبي عليه الصلاة والسلام بشر ربيع الأول نبي الطبن إن أيتهاي معلنت أيتهاي يوم كنا يوم اثنين أويهي أيا إلهي كون كان كسو داهريي إلهي سبحانه وتعالى وقد ضبق العالم الجهل والكفر والشرك والفسق أي إلهي كون كان كسو ظاهري إلهي سبحانه وتعالى نبي وحسو ظاهريي أو كون كان كسو ظاهريي مالين اثنين حل آن مالين أهين هبئنا آن أهين أي إلهي كون كان كسو ظاهري إلهي مالين درار عد مكينين هبين مقدينا مكينين لكن حلي آن هبين هين مالين درار عدنا آن هين أيها نبي إلهي كان كسو داهري إلا ذا يسارت وحيتا لألا يتفاخر أحد الزمنين الآخر إنه متك كالأفانين أوران إنه أفضل الأولين والآخرين وهو محمد صلى الله عليه وسلم ولد فيا أيا الله يقول علي إنه متك كلام متك وأرن وسأفان أيا تعديلا إياه وتقصيدا بين الزمنين أيها النبي عليه الصلاة والسلام إلهي كسو داهريي كونك حل قاس وقت قاس أيها كسو داهري خلق النبي صلى الله عليه وسلم ربي أو صادر النبي محمد أسقو خلقي برباريي صادري أو كتل مامي وإنك لعلى خلق عظيم وعاد كدول سكان تايبا لا يري خلق عظيمة علماء إني حديان خلق عظيمة وكوذا قابصدين عاد فلان يساقف هدي كتاب كله سو أخري أنكو عشاكرين هدي اللي يرادو ما العلماء دي وين هين كقابصدين أذوقوا كهذا الهدي اللي يراد خلق النبي صلوات الله وسلامه عليه عائشة يا وحلقة ويديي وعلى يري النبي قد عديسة يا خلقيس سوءها مركز عدي ويدينا سي وحي كتري ما تقانا قرانك مركز وحي ها وانا قانا قرانك كان خلقه القرآن بيتر مرك نبي قد عديس وحي هذا خلقه يسوسه القرآن قرانك أيام معمولاي haddii uu rabo inuu arin sameeyo quraanka ayaa hagay haduu arin ka harayana quraanka ayaa hagay markii nabiga khuluqiisa laga hadlay culimadu dhowr jiha ay ka hadlaan waxay ka hadlaan fi sidqi waxay ka hadlaan fi amanati waxay ka hadlaan fi alwafaa waxay ka hadlaan bi rahmati waxay ka hadlaan bi adli
waxay ka hadlaan bira'fatihi bay ka hadlaan waxay ka hadlaan bicizihi wa karamihi wa juudihi ayay ka hadlaan wa shajaacatihi bay ka hadlaan wa zuhdihi ayay ka hadlaan wa shafaqatihi ayay ka hadlaan waa mid walba oo mawduuciisa gaarka haddii la siiyo kitaaba gaar oo ay ka qoran yihiin bisidqi nabiyi sala allahu calayhi wasalama kitaaba gaara ayaa ka qoran waxaa u asala kalaamu rabbi alcaalamiin ayaa u asala maa dalla saaxibukum wamaa qawaa wamaa yandiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa allahu subxaanahu wa tacaala ayaa taskiyeeyey nabi muxamed qalbigiisa ilaahay baa taskiyeeyey iyo lisaankiisa waa lamada beenta laga sheego qalbiga waxaad ku kaydisad carabka ku turjuntaa soo ma qalbiga waxaad ku soo xaadiriso ayaad carabka ku turjuntaa labadaba allahu subxaanahu wa tacaala ayaa taskiyeeyey beenna ka fogeeyey maa dalla saaxibukum wamaa qawaa buu allah saaxibkiinna ma uusan dhuminin mana baadiyaysanin wamaa yandiqu cani ilhawaa maagiisana kama uusan dhawaaqinin xagguu ka dhawaaqa marka wuxuu ku dhawaaqaya in huwa ilaa waxyun yuuxa wuxuu ku dhawaaqaya waxay ahaayeen sidqi iyo waxyi ayay ahaayeen allahu subxaanahu wa tacaala ugu waxyoonaa marar badan marka laga hadlaya ixtifaalka nabiga sal alla alay wasalam dad badanaa waxaa ka jira in buuq badan waxyaaba laga sameeyo ustaad sheekh saciid haddaay si kooban oo aad u faahfaahsan uga hadlay aniga waxaan qaba waxay tahay aayadda ku jirta suuratu racdi 17 markaa fiirsaan anzala min assamaa'i maa'an qaybta maan ka bilaabay kadalika yadribu allahu alxaqa waalbaatil faama azabadu fayadhabu jafaa wa ama maa yanfacu nnaasa fayamkus mayno macnaheedu maxay tahay waxyaan isdaalin buuq yaa la gelin waxaan way jireen sannaday soo jireen hadday baadil yihiin waa bixi lahaayeen hadday xaq ahayn mar horay tegi lahaayeen annagoo dhalnaan sii jireen way naga sii horraysay 10 kun sano naga horraysay marar badan adiga marka waqtigaa ku bixin inaad difaacdo difaac kaga baahan nabi sallallahu alayhi wasallam ilaaha difaacay wuu difaacan yahay laakiin adiga wax baro ku horayso waxa baratayna si akhlaaq leh u gudbi murankana laba qof oo muratay ma kala badiyaan sidoo dhanba laba qof oo muratay ma kala badin doonaan adiga muran ha gelin simple aqoontaada qofka eelkaagana waxaa la waqtiga ku ay gelin doono waqtiga aa ku wacyi gelin doono tusaale yar sanadka hadda jirta marka labaad ixtifaalka cidda ka qayb gashay iyo cidda qabanaysa daa fiirsan waa cid diidi jirtay waay kubi diidi jiray aad u horeey maxaa marka sababaye الزمن ayaa يعلمهم macna adi marka difaac waqti kaaga baano nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam difaac sugu filan adiga kaliya aqoontaada horumari ina wax fahansan tahay aad tahay qof maartay technology qof modern inta ina awood gal isku day wax walba sameynaysidna inay yeeshaan reference ama tixraac aad ma masjid assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sidoo kale qayb kamid ah ardayda wax ka barata jaamacadda ayaa dhankooda uga qayb qaateen xafladda kelmado kooban oo ku baxayay afka Carabiga iyo afka Ingiriiska kuwaasi oo ku tacalluqayay nabigeena Muhammad nabadgeliye naxariis korkiisa ha ahaatee نحن اليوم نحتفل بمولد سيد الورى رسول أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبصم وضياء ولد الهدى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير الداعي مرحبا يا خير الداعي. I am standing in front of this respected meeting to suggest a so short lecture about the birth time of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As we know, today we are celebrating the greatest grace came in the world, who is the light of all the global and kind for everybody on the earth, who chosen by Allah and then led the people to the goodness and saved from the world the darkness of ignorance. أيها الحفل الكريم، فقد اجتمعنا لهذا اليوم لموضوع له قيمته وغايته وفائدته، لأن كل شيء يتشرف بشرف متعلقه، وهو الاحتفال بذكرى مولد النبوي الشريف. ما اجتمعنا هنا لأن نحيي ذكرى نسيناها، بل اجتمعنا
أن نحيي ونجدد قلوبا غاب عنها الهدي والحبيب. أما يا سيدي ما نسيناك لم ننساك ولن ننساك. شافعي محمود حسن، حياة إسلام ميديا، مقالة مقدش.